والله waxay dhahayaan yaa ku jira qofkeeba ugu roon kee la dili kara kee la iska qabtaa marka damana dumarka iyo inta hartay bay dareersanayaan ninka geedka gelaayo oo hadeer aan imanayn haday Daacish soo qabsato buuraha iyo banaanka arigaaga barbay goosanayaan wiilashaada shan bay leeyeen saddex weey afar keen bay dhahayaan sida koonfur ka dhacda boosaaseenu kaga soo baxnaa gaari gaalkacyan ku tagnaa hal gabar baa wata ama oday baa wata ama nin wiila wata isagoo aan cidlo socon ilaahay wax loogu xamdiyahay laakiin bulshada Puntland gaar ahaan gobolka Karkaar waxaan ugu baaqayaa meel la fadhiyo ma taalo meel la joogo ma taalo meel la ganacsado ma taalo meel wax kale laga fikiro ma taalo qof walba waxa laga doonayaa waxa uu qaban lahaa inuu qabta laga doonayaa ma la ilaawi doono halgamayaal weeye meel baa lagu qoray dawladuna ogaanaysa agoontoodii iyo guryahoodii kuwa gaadiidka wata kan baadiyaha degan tuulada ninka jooga qofkii meel maraya oo ay ka shakiyaan inay soo sheegaan waa wax ugu horeeya laakiin gabdhaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wax qiirale bay ku yimaadeen dalka in la difaaco cadawgana laga saaro muggiina iyo miisaankiina baa tilmaamay waxaan isu warramaynaa waa la socotaanin madaxweynaha dawladda Puntland wuxuu ku dhawaaqay guluf lagaga xoreynayo argagixisada al-shabaab iyo Daacish buuraha gobolka Bari gaar ahaan Daacish dagaalkii ugu horeeyay oo ismiidaamina miidiyaha ka aragteen ciidamadu waa sheegeen dhar jaale waxay isqarxiyay waxay wada noqdeen iyo wixii la laayay wax Soomaaliya kuma jirin taas waxay inii cadaynaysaa dalkeena in duulaan lagu yahay oo Daacish duulaan ku tahay oo waxay u socdaan aan la garanayn oo aysan waxina ku lahayn oo Soomaalidu ay qaliil ka tahay oo waxa weeye ay doonayaan inay hooyada yaanyada gadaysa baqaarka ninka jooga sharciga dawladnimada ninka ilaalinaya kala damaynta ilaalinaya inay qarxiyaan hantida ganacsatada iyo dukaamada iyo shirkadaha ay qarxiyaan taasu daliil waxay u tahay inay duulaan qaawan tahay waxaan bulshada u bayaaminaynaa dagaalka dawladdu ku jirto oo kula dagaalamayso argagixisada waxaan u baahannahay ficil iyo jawaab dawlad iyo shacab inay iska garabsadaan waxay ina ka soo weerareen waa garanaysaan Suudiya Garmaal galgala iyo buuraha intii dagaal la gal waa lagu jabiyay Suudiya Garmaal qolkay galaanba gabdhaha sheegayay odayaasha sheegayay ka ariga la jooga sheegayay maxaa markii kuwa Soomaali bay u badnaayeen hal qof adnabi kuma jirin laakiin kuwaan waa kuwa aan inoo arxamayn diinna u socon dadnimana u socon inay qof kasta duleystaan meeshiisana ugu tagaan raba dawladdu waa ka dhidhiday jawaab bay ka bixisay ciidamadii bay u duntay jawaabta ugu dambaysan iyada bixinaysa laakiin bulshada Puntland gaar ahaan gobolka Karkaar waxaan ugu baaqayaa meel la fadhiyo ma taalo meel la joogo ma taalo meel la ganacsado ma taalo meel wax kale laga fikiro ma taalo qof walba waxa laga doonayaa waxa uu qaban lahaa inuu qabta laga doonayaa maxay tahay wuxuu qaban lahaa waxa laga rabaa shacabka hooyooyinka dadka darawallada ah kuwa gaadiidka wata kan baadiyaha degan tuulada ninka jooga qofkii meel maraya oo ay ka shakiyaan inay soo sheegaan waa wax ugu horeeya waxa laga rabaa taageero caanaha inay qaadno biyaha qaadno sabaayada dubno gabadhii dhakhtarada soo baxdo odagu xoolaha soo gooyo wallaahi Daacish meesha ugu imanaysa ninka geedka gelaayo oo hadeer aan imanayn haday Daacish soo qabsato buuraha iyo banaanka arigaaga barbay goosanayaan wiilashaada shan bay leeyeen saddex weey afar keen bay dhahayaan sida koonfur ka dhacda boosaaseenu kaga soo baxnaa gaari gaalkacyan ku tagnaa hal gabar baa wata ama oday baa wata ama nin wiila wata isagoo aan cidlo socon ilaahay wax loogu xamdiyahay laakiin waa la inoo soo dhila dhaansaday maxaynu kaga bixi karaa wada jir baynu kaga bixi karaa waxba odayaashu aysan gadaal gelin meherada iyo shaah ka cabin wallaahi dhafoorka lagu wada dhifanaya iyaga xoolaha laga qaadayo
wallaahi waxay dhahayaan yaa ku jira qofkee baa ugu roon kee la dili karaa kee la iska qabtaa marka dambana dumarka iyo inta hartay bay dareersanayaan aqbali mayno inta qof naga nool yahay haddaanu anagu dawladda nahay anagu fadhii mayno xafiisyada maalmo dhow waxaa naga arki doontaan anagoo furmaha joogna kama shaqaynayno gobolka iyo halanka kama shaqaynayno waxaan idinka rabnaa odagii diida gabadhu inay dhagxiso oo guri ka soo saadho waxaan idinka rabnaa gabdhow odagii suuqa taagan inaad dhagxisaan meherada ku fadhiya dhagxisaan ka saadhaan odayaasha magaalada bannaanka inuu baxdiga dagaalka ay galaan waxaan idinka codsanayaa gabdhaha oday guri seexan karaa ma jiro oday meherad fadhii karaa ma jiro oday gaari kaxaysan karaa ma jiro dagaalka waa in loo guntadaa ma wiilasha keliya oo dhimanaya oo shashanta u dhimanaya baan sugaynaa ma odaga duub kale oo halka fadhiya oo beenta ku sheekaynaya sugaynaa waxaa layna ka rabaa gabdhow inaad kacdaan oo idinku ciidan noqotaan diyaar waxaan u noqonaynaa oo wallaahi oo bilaahina waa inaan u dhimanno oo meesha ku maydno oo annagoo aanaan shabaab iyo daacish aanaan halka u fadhiin baan ballayni ka qaadin raggii dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ma la ilaawi doono halgamayaal weeye meel baa lagu qoraya dawladduna ogaanaysaa agoontoodii iyo guryahoodii qof kastoo meeshaa ku dhinta qof la ilaawi doono ma noqon doono si gaara loo ogaan doonaa taa ogaada midda labaad waxaan rabnaa waa inaan hawlgallo marka maxaanu hawlgelaynaa waxaa la rabaa guryaha la rabo kimiista in lagu dubo burkana waa keenaynaa saliidana waa keenaynaa gabdhuhu inay dubaan baan rabnaa iyaguna calaamadiyaan baan rabnaa waxaan rabnaa baabuurtii biyaha iyo timirta inaan diyaarino guddi baa iska soo saaraysaan guddoomiyaha inuu ku dhawaaqi doona markaasaan waxa weeye annaguna waxaan keenaynaa timirtii iyo wixii loo baahan yahay idinkuna qaybtiinaa keenaysaan magaalada gelaysaan sidii ay sheegtay isuduwa waxaan rabnaa ugu yaraan 4 gaari 3 gaari oo buskul iyo timir iyo wax walba isugu jira inaan raraan rabnaa waxaan diyaar u nahay inaan wax kasta oo loo baahdo oo ragga dagaal ku jira u baahdaan inaynu gobolkeena ugu horeyno geeyno sida ay sheegeen raggii horeba xoolihii baan geynay hantii kale aan geynay raggii baa jira wixii kalena waa ku dareena diyaar waxaan nahay anaguna ka doortay waxa kaliya layna ka rabaa ugu baaqaya gobolka Karkaar dadka xeebaha degan iyo tuulooyinka baadiyaha inay feejignaadaan wax kasta oo xoga ay helaan inay soo gudbiyaan meel kasta qof baa inoo jooga dad baa ku nool xoolaha ku dhaqan tuula ah kuwa badda ka xamaalanaya kuwa bahalkaysanaya inay qof kasta oo cadawa aysan qarin ee meesha ugu dhow maamul ay u wargeliyaan baan ka rabnaa haddii ay waayaan cid ay la hadlaan inay anagana la soo hadlaan lambarkaygu waa 7797429 dagaalka inta socda saacad walba waxaan diyaar u nahay inaan qabanno saan cod uga hortagno